mudan Cusmaan maba dhimanayo horta dadka aaminsan mudan Cusmaan in uu dhimanayo. Mudan Cusmaan ma dhimanayo, waa gacan Mongoolisna kuma dhimanin, gacan Basantiniin ama ciidana kuma dhimanin. Waxa isweydiinaysaa haddaba waayahay mudan Cusmaan hadda waxayba ahaydba in mudan Cusmaan uu awoodaystay oo wax walba ka hor yimaado uu burburiyay. Maxay ahaayeen nimankan aftubtay weliba isaga oo seef loo qaadanin? badbaadiyaha mudan Cusmaan Turgut Albi ma noqon karaa mid ka saxda ah ay yimaada xalqada 177 si uu uga saaro mudan Cusmaan xalkan adag ee uu ku jiro. mudan Cusmaan markan ma aha mid dagaal iyo dhulka loogu dhigay ee waa mid siyaasadeysan. ninkan waxa uu ogtiin Mongooliskii inuu ka soo maray dhanka shacabkiisa. qof walba oo mas'uul oo daacadana waxa uu ka jilicsan yahay waa shacabkiisa iyo ciyaalkiisa. haddaba mudan Cusmaan markan waxa uu afduuban yahay Mongooliska oo ogeedeen. sidoo kale wiilkiisa orahana waxa uu afduuban yahay waa isla Mongooliska. Alaadiina waxa uu la daalacay raadinta iyo daweynta qabiilkiisa maadaama sun ay ku abuureen una raaciyeen biyaha. haddaba markan ma tahay markii loo baahnaa ee saxda ah ee u iman lahaa ninka Turgut Albi la yiraahdo. waxaa jirtay sheeko la dhex maray oo ahayd in uu imaanayo Turgut Albi ama ninka la yiraahdo Koses, balse waxaa jira war xaqiiqo ah oo tibaaxayo oo idin hayo oo cadiintiisa idin soo dhigayo Maxamed Bosda in uu la bedelo ma ahane oo ah siisanka lixaad jilayaasha loogu talagalay inay ka qayb qaataan taxanahan Kurulus Cusmaan dhammaantooda. haddaba si muuqaalkeena hore aan ugu sii wadano waxaan ka codsanayaa channelka haddaan subscribe hore u saarin in hadda subscribe aad dhahdid like-tan barnaamijka aan ugu qurxid aad iyo aad baa u mahadsantahay. waxaa jirta raadin badan oo aan sameeyay oo ahayd xalqada 177 maadaama wajigeedu uu yahay waji aan la saadaalin karin lana fasiran karin maadaama mudan Cusmaan iyo Orhan ay u afduuban yihiin Mongooliska iyo waliba Orhan Albi. mudan Cusmaan haddaba yaa badbaadinaya? mudan Cusmaan sidee ayuu ku badbaadayaa? markan oo kale waxaa qasab ah inuu yimaado qof badbaadiyaha oo mudan Cusmaan ka samata bixiya xaaladan adag ee uu ku jiro. filimku waxa uu marayaa meelihii ugu macaanaa ee mudan Cusmaan de loo baahnaa in uu aasaaso salkana uu dhigo dawladii Cusmaaniyiinta. mana aha mudan Cusmaan markan mid Mongoolisku ay ka guuleysanayaan oo lawyaha dhulka u dhigayaan ama mudan Cusmaan ba ay dilayaan. mudan Cusmaan halkiisa waa kii ahaa macnihii annaga dhimashadana dhulka ma dhigaysa dawladana mid si baabaada. mudan Cusmaan maba dhimanayo horta dadka aaminsan mudan Cusmaan in uu dhimanayo. mudan Cusmaan ma dhimanayo, waa gacan Mongoolisna kuma dhimanin, gacan Basantiniin ama ciidana kuma dhimanin. mudan Cusmaan waxaa dilay waa dhaawacyadii ka soo gaari jiray dagaalada uu gali jiray. ha ugu badnaadaan dhaawacyadii ay soo gaarsiiyeen Mongoolisku, ha ugu badnaadaan dhaawacyadii soo gaarsiiyeen ciidamadan maxaan ku raadayay Basantiniinta iyo dhaawacyo ay soo gaarsiiyay dawladda Salaajqada. waxa isweydiinaysaa haddaba waayahay mudan Cusmaan hadda waxayba ahaydba in mudan Cusmaan uu awoodaystay oo wax walba ka hor yimaado uu burburiyay. maxay ahaayeen nimankan aftubtay weliba isaga oo seef loo qaadanin? mudan Cusmaan horta waxa laga soo maray waa dhanka shacabkiisa sida aan idin sheegay, waa uu ku qasban yahay shacabkiisa uu badbaadiyo in isaga uu isdhiibo. mas'uul walba oo daacadana midaas waa lagu yaqaanaa. haddaba Mongooliskani awood saa u sii badan xilligaas miyay lahaayeen? Mongoolisku xilligan ma jirin xilli maxaan ku raday ay ka awood badnaayeen markii la eego xilligii Genghis Khan uu joogay maahane. maxaa yeelay Genghis Khan xilligiisii waxay ahayd awood aan inaba caadi ahayn, balse laakiin xilligan mudan Cusmaan ma aha xilligii Genghis Khan uu noolaa. waxaan wada ognahay mudan Cusmaan inuu dhashay xilligii magaalada Baghdad ay Mongoolisku gacanta ay ku dhigeen ama Genghis Khan ciidamadiisa ay qabteen inuu hogaaminayay ninka la dhahayay Hulagu Khan. marka haddaba dawladii markii uu dhintay ninka Genghis Khan la dhahayay dawladii Mongooliska ee caalamka sida baan marka uu gumaaday dadka muslimiinta waliba aad u baabiisay. waxa ku dhacay hoos u dhac ku yimaaday iyo ka tafataraaro ilaa markii dambe nin Timur Lenk la yiraahdo oo Mongoolis haddana dib uu soo abaabulay. marka haddaba mudan Cusmaan xilligiisana waa xilligaas Mongoolisku dib ay isku soo abaabuleen oo wadamo badan oo caalamka waa ay haysteen, balse laakiin awoodooda sidii hore ee laga cabsanay ma ahayn ilaa hadda, laakiin waxay ahayd macnaheedu dawlad laga cabsado. mudan Cusmaan waa ay ka awood badneed aad iyo aad boqolkiiba boqol ayay ka awood badneed. maxaa yeelay dawladdan waxay dawlad dhisan oo caalamka dhan ka talisayeen. mudan Cusmaan wuxuu nin doonay in uu dawlad u aasaaso oo qabaa'ilo Turaakiya ayaad barkaysan inay isbarbar dhigayeen oo ku lahaayeen mudan Cusmaan ciidamadiisa macni anaga ayaa ka badan. haddaba mudan Cusmaan yaa badbaadinaya? mudan Cusmaan warkaan u soconay waxa weeyaan mudan Cusmaan yaa badbaadinaya? waxaa jirta liisto Maxamed Bosda uu soo saaray siisanka lixaad jilayaasha uga qayb qaadanaya taxanaha Kurulus Cusmaan dhammaantooda dhameystiran. silsilada waxa ugu dambeeya waa gabadha la yiraahdo Sofia sidoo kale Xaliima, sida ay kala horeeyeen. Sofia ayaa ah qofka ugu dambeeya halka Xaliima ay tahay ayaa macni qofka ugu dambeeya tahay Xaliima. waa Xaliima Bey ama Booyana gabadha taqaanaane.
mata haddaba Turgut Albi xilligii saxda ahaa ee loo baahnaa inuu yimaado Turgut Albi ninkan wuxuu ugu talagalay Maxamed Bosda in uu xalqadan 177 ka hor inuu yimaado balse ninka Turgut Albi oo ku mashquulsanaa jilista filmaan kale ayaa waqti u waayay laakiin Maxamed Bosda markan waa qasab inuu qof booskiisa uu keeno ninka la yiraahdo Turgut Albi ama isaga ha keeno ama qof kale oo badbaadiyaha uu awooda markaa yimaado waayo waxaan wada ognahay ninka badbaadiyaha saxda ah ee Mudane Cusmaan mar walba inuu ahaa ninka Turgut Albi la yiraahdo oo taariikhiyan waxa uu yahay ninka ugu cimriga dheer ee dawladda Cusmaaniyiinta ugu awoodda badnaa ilaa waxaana ka sii garab dagaalami jiray ninka Turgut Albi la yiraahdo wiilkiisa la yiraahdo Orhan Bey oo magaalada Bursa marka gacanta uu ku dhigayay waxa la dagaalamay ma ahan Mudane Cusmaan markaa isaga mid ayuuba ahaaba oo waxa meeshaas joogay waa ninka la yiraahdo Turgut Albi marka haddaba Turgut Albi waa in uu yimaado xalqada 177 ama xalqada 178 waa in uu yimaado dhamaadka waliba xalqada 177 Mudane Cusmaan isagoo la badbaadinayo ayaan jecelnahay inay ku dhamaato haduu Ilaahay u yiraahdo waayahay maxaa kale haddaba Maxamed Bosda qasam Turgut Albi in uu keeno maya qasab ma aha Turgut magaciisu inuu yimaado weeyaan in Maxamed Bosda meesha uu bedelo oo qaab kale oo indhaha caalamka soo jeedan iyo indhaha daawadayaasha inuu keenayo ma garanay laakiin sida saxda ah ee degan ee diiwaanka ah waxa waa taariikh ma aha film la iska sameeyo oo actor baatu buux actor kale la keenayo ama laadarka ma aha waa film taariikhda saxda ah in lagu wada weeyaan laakiin waxaan wada ognahay isla kastoo haddana taariikhu yahay in la soo dhaxgelin jiray weligeed ba taariikh kale oo ku dhex jiran tusaalahaan soo qaadana Artoqral xilligiisii ninka la yiraahdo Bamsi Beyrah macnihi ma ahayn qof xilligaas noolaa laakiin wuxuu ahaa nin uu dhalay nin suldaanaho abaanduulaho gaarayo oo aad geesu ah oo badbaadiyaha markaas in taariikhdiisu u lumin ayaa waxa lagu soo daray taxanaha Artoqral ilaa iyo waxa uu noolay xilligii Cusmaan Bey ilaa uu dambeyn uu ku baxay gacantii Mongooliska haddaba mid aan ka soo laabanay Turgut Albi iyo maxaa Bamsi iska galay waa laba kala waji Turgut Albi inuu yimaado ama qof kale oo badbaadiyo oo booska Turgut Albi ku jira inuu yimaado waa weeyaan markan haddaba si Mudane Cusmaan loo badbaadiyo ama wajigii hore ee Turgut Albi aan naqanahay yimaado ama waji kale oo Turgut magaciisa wata yimaado hadduu ka geen waayo waa inuu keeno qof magac ku leh oo filimka dhadhan u yeelo Mudane Cusmaan garab istaagsiya si uu u asaaso dawladdiisa una dhameystiro waxyaabaha hada ka dhiman maadaama season-kan iyo kii ugu dambeeyay Mudane Cusmaan uu jiri doono ama aan daawan doono oo way waxa la wareegi doona wiilkiisa Orhan Bey la yiraahdo magaalada Bursa ee Mudane Cusmaan uu ku dul dhimanay isagoo ku haya go'aanka hadda waa la taagan yahay marka waxa haddaba aan ku soo gabagabeynay waxa weeyaan liistada ayaan soo dhigaynaa halkan sida wada jeedaan liistada waa midan Maxamed Bosda ugu talagalay in uu ku wado taxanaha kulul Cusmaan season-ka 6 sidoo dhameystirtan yahay adiga markaa ma kula tahay Maxamed Bosda midan inuu raaci doono mise waxyaabo kale oo hor leh ayaa iman doona fikirka waa muhiim aad baa maasantahay